daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee basaasadii weyneed ee amiina qaybta koowaad waxyaabo badan ayaan uga soo hadalnay waadna ku soo faa'iideen haddana waxaan rabnaa qaybta labaad inaad si fiican aad u daawataan aan idin xasuusiyo meeshaad naga daawanaysaan waa raadka sirdoonka subscribe noo saara janaalkan loo kala kiciya walaalayaal wax badan ayaan idin soo wadnaa insha allahu soo dhawaada موسادka gacan ayay siiyeen waa la tababaray sirdoonima loo tababaray qaabka connectionka isgaarsiinta qaabka wax loo sawiro qaabka xogta loo soo gudbiyo dhammaan waa la baray ugu dambeyn way soo baxday Lubnaan ayay imaaday gaar ayay ku imaaday waxaa loo baahnaa Lubnaan inay shaqada ugu horeysa ka qabato meesha ka soo degtay waxaa joogay kooxda dib u xareynta Falastiiniyiinta weliba waxay degnaayeen meel Lubnaan ka tirsan oo dalxiisa oo marnaba aan laga shakin karin laakiin muusaadka arinta kor ayay kala socdeen ugu dambeyn Amina xaggaas ayaa la dejiyay wax cajiibsan waxay tahay in nin ka shaqeeya isgaarsiinta inay saaxiib la noqotay wax walba asaga ayaa u fududeyn jiray ninkaas magaciisa waxa la Maarug jacayl badan ayay siisay lacag badan ku soo jiidatay waa isku kala dhigtano waa ogta raggan xogaha dumarka dad isku kala dhigaan wax walba way sheegayaan asagana xogtii dadka ayuu gudbiyay yacni xisbigii kooxdii kulli waa u gudbiyay kadib yahuudi si fudud ayay arrimihii ku ogaadeen lambaradii meesha ay ku sugayiin dadka tiradooda inta badan kadib 20 qofood oo urkaas ka tirsan ayaa la dilay oo Falastiiniyiin ah weliba dilkaas waxaa fududeeyay gabadha Amina waxaana garab ku siiyay ninka lagu magacaabo Maruuna ayada hooshadii ayay meesha ka sii wadatay muusaadka Israa'iiliyiintana aad bay ugu riyaaqeen hawsha gabadhan ay soo gudbinayso muusaadka waxay garab ku siiyeen isbitaal weyn inay u dhisaan maadaama ayada ay tahay gabar taqaana cilmi nafsiga isbitaalka waxaa loogu dhisay meel ka tirsan magaalada Beirut runtii isbitaalka dadka aad bay u daaweynaysaa xitaa waxay noqotay dhakhtarada ugu fiicneed isbitaalka xitaa waxay noqotay dhakhtarada ugu fiicneed wadanka oo isbitaalka ka shaqeyso marka qaarkood waxa uu imaan jireen hogaamiyaasha Falastiiniyiinta iyo ciidamada Falastiiniyiintu waxay kala tashan jireen arrimaha qoyskooda iyo noloshooda qof walba aad bay u jeclaysanayeen dhaqtaradan laakiin yaa u sheego inay tahay jaajuusad yahuudi ah hatta waxa kaaga sii daran maamulka sare ee ciidamada iyo hogaamiyaal badan ayaa gabadhan soo dhaweyn jiray ayadu waxay gabar qurux badan oo soo jiidasho leh leesma dhayn qoftan ayaa xun runtii qof walba soo dhaweeyo dhahay qofkii meel u baxaya way u imaan jireen oo way raaci jireen ciidamada xitaa ayada qayb bay ka ajirtay mararka qaarkood dilalku way sii socdeen Israa'iilna diyaaradeeda duqeynta way wadeen waxba kaaga sii daran maalintii waxay la kulmaysaa madaxda qaranka habeenkana xogta u gudbin jirtay Israa'iilna waxay sameyn jireen isla meeshii xogta loo gudbi ayay duqeyn ka geysan jireen intaas waxba kaaga sii daran dadka la laayay carruurtooda ayay u imaan jirtay runtii way ciyaarsan jirtay weliba intaasoo idil lama ogaan jirin sirtana si fudud ayay ku gudbin jirtay yahuudana si fudud ayay sirta ku heli jireen yahuudana waxay iska sii wadan xasuuqi ayadoo waxay sameeyday isbitaalka ayay imaaday dhaqaatiir badan xitaa duqeyn ayaa lagu dilay isbitaalka markay timid waxay gashay inay yahuudda hayso ilaan cid ogeed maba lahan markaas kadib iyada waxay go'aansatay inay la kulanto madax badan oo Falastiiniyiin ah mid ka mid ah madaxdii ayay la kulmaysay weliba meel lagu magacaabo Karaji ayay ku kulmayeen qaabkaas raadeeda waxay u malaynaysaa qof iska caadi ah inay la kulmayso ayada xataa ayada waxay diyaar u ahayd jirkeeda in ay dhiibto maadaama qadiyad ay ku taagneed weliba ay doonaysay in ninkeeda dhiig badan loo daadiyo weliba in loo aaro nin hogaamiye sare ayay la kulantay Cali Xasan Salaami ayaa la dhihi jiray asaga ee ayadu waxay ka wada hadlayeen arrimaha isbitaalka waxayna wada gorfayeen arrimo badan ayada laakiin xogtaas oo idil waxay u gudbinaysay muusaadkii Israa'iiliyiinta ahaa ayada waxaa la dhahay ninkan waa inaad noo sheegtaa qaabka uu egyahay ama sawir ka soo qaad runtii maadaama ilaalo adag ay ilaalinaysay asaga xogaa way ku adkaatay inay sabirto laakiin sabirkiisa mid weeg ayay sabirtay kadibna waxay u dirtay muusaadkii Israa'iiliyiinta ahaa muusaadku way yaabeen waxay la yaabeen gabadha inay la kulantay nin ay in badan raadinayeen ninkaas oo lagu magacaabo Amiirkii Axmar cajiib ay la noqotay waxayna u sheegeen ninkan ay la kulantay asaga inuu yahay
nin halis badan oo dunidan oo dhan laga raadinayay amiina kulankaas kadib information walba oo dalkaas ay ka rabto ninkii communicationka qaabilsanaa ee waddankaas ayaa u soo gudbin jiray maadaama jeclow ayada ay la sameynaysay 1973 maalin ka mid ah waqtiga dagaalka maalin ka horsay amiina waxay muusaadka u gudbisay in daaweyn badan in amiirka axmar ahaa oo Romania u keenay waxay u sheegtay in Belgium ku joogo George Habash Tunis ayuu yimid asagoo passport fails wato sidoo kale waxay dhahday Yasser Arafat wuxuu qabtay maahan gurigiisa ayuu jooga nin walbo xogtiis way gudbisay maanta subax ka dambeeyay muusaadku waxay daba galeen amiirkii axmar waxaa loo sheegay Norway inuu joogo markaas kadib sabirkii ayay u direen 6 nin oo Yahuudi ah waxay tageen hotelka uu ku sugnaa amiir axmar laakiin waa nasiib darada maanta dhacday fiiri nin Maroccan ah oo u ekaa amiir axmar ayaa la dilay waxa dilay 6 nin oo Yahuudi ah waxayna rabeen amiir axmar inay si fudud ay ku dilaan Norwishka ciidankooda booliska waxay sameeyeen 6 Yahuudiga ah ayay xiran adduunkana way hadlaysay 6daas nin la xiray amiir axmar waxa uu ka badbaaday dilkii qorshaysneed markaas kadib kooxdii ayuu waxa uu soo diray 3 farin oo ahayd anigu waan soo laabanaya marka soo laabto waan gubayaa wax walba anigu waan gubayaa intaas kale ayuu soo qoray arintana runtii aad bay u xumeed abu ayaad waa la dilay weliba duqeen diyaaradaha Israa'iil ayaa lagu dilay weliba meel 20 mitir guriga Samaal u jirto weliba muusaadku waxay ogaayeen gaariga nooca uu raaci doono ninkan abu ayaad oo la dilay amiir axmed arintii uu la yaabay wuxuu yiri yaaba jaajuskan markaas kadib jabhada xorintu waxay bilaabeen inay dagaalkooda u diyaar garoobaan 1974 amiina iyada aqligeedu wuxuu noqday mid aad u sare maadaama ay noqotay gabar sii weynaatay mashruuca zanin inhaaya runtii dagaaladaas ay ururka diyaariyeen ayada ayaa kansashay yani waxay u kansashay wax kale maahan xogta ay u gudbisay kuba Israa'iilka ahaa adigu waxaad isweydiinaysaa amiina xogtan sidee ku heshay dib aan u xasuusano maaruunka xumaa oo ka shaqeynaya isgaarsinta ayaa gabadhan wax walba u fududeeyay oo jecel wadaaga ay ahaayeen ayadu waxay tageysay goobta isgaarsinta kadibna wada hadalada dadka ayay dhageysanaysay kadibna muusaadka Israa'iil ayay u gudbinaysay kadib Israa'iiliintu waxay sameeyeen xog walba loo gudbiyo isla bartii ayay ka qabanayeen oo cid ay dhaafayeen malahan waxay toogtaan iyo waxay kor ka rusheeyaan muusaadka markaas kadib go'aan ay gaareen gabadha ay la hadleen waxay dhaheen ninkaas mar labaad waa inaad la kulantaa amiirkii axmar ahaa asaga ayaa muhiim noo ah gabadhi waxay sameeyday diyaar ayaan u ahay kadib waxay la hadashay qolay ka tirsan xarakada waxay dhahdeen aniga waxaan u baahanahay aniga inaan la kulmo cali xasan laakiin ayaga waxay dhaheen waa diyaar maalmaha ka mid ah iyadoo isbitaalka joogto ayaa kooxo u imaadeen kooxdaasi waxay ka tirsanaa xarakadii kadib indhahayay ka xiran amiirka ayaana loo geeyey indhahayaa laga furay waxay ogaatay kuraaj inay joogto isla markiiba 5 daqiiqo wada hadal markii uu dhaxmarayay labadooda hadal ayaa ka soo fagtay hadalka ka soo fagtay ayaa sababtay in ayadu baxar ay gasho isla markii ayadu way isboojisay waxay dhahday cali yani familkaaga yani ilmaha in isbitaalka la keeno caafimaadkooda in la kontrolo aad bay u qurux badan tahay ha cali wuxuu yiri ha dabcan way fiican tahay asixta uu isboojiyay arintii uu la socday runta hadaan ku sheego amiir axmed asaga nin aan inaba caadiyan waa ma loo gamban karo oo xogta si fudud ayuu ka ogaan karaa wuu baxay banaanku aaday 5 minutes kadib uu soo laabtay haddana wuxuu iska dhigay yani qof wax ogeyn ayada laakiin waxay taagneed yaa meeshan ka bixiya oo waxay isdheeyay ugu dambeyn ama hadii lagu ogaaday sheekada dib aan u milicno cali asaga wuxuu qabay gabadha adduunka u quruxda badan magaceedu waxa lagu magacaabay jiray Georgina Rizq waxay u dhalatay Lubnaan laakiin midda dhabta lama ogaan jirin gabar kale oo Falastiiniya ayuu qabay 3 ilmo oo u dhashay 3daas ilmo iyo xaaskiisa dheedheel laguma ogaan karin yani asaga waa u qarinayay laakiin dadka inta badan waxay aaminsanayeen in naagtan uu qabo naag kale aanan jirin laakiin waa arrimo sirdoon si fudud noloshiisa inaan lagu ogaan karin ayaan ku cadeynayaa markuu qolka ka soo baxay oo amiino ula joogo wax kale muusan sameyn wartaashu wuxuu dhahay aniga waxaan u baahanahay gabadhan xogteeda in laga keeno xogta ay u keeneen waxay u sheegeen gabadhan in Jordan ay ka soo jeedo yani reerkeeda inay isku dhaceen in mudayna kala maqan yihiin Australia inay degan tahay kadib cali gudaha uu ku soo laabtay labadu way kala tageen habeenkii uu isboojeenay markaas kadib amiirku wuxuu go'aansaday in rag badan uu diyaariyo yani wuxuu dhahay gabadhan Australia waxay ka heeso waa in la soo indheeya way baxeen meesha ay ka daba tageen waxay soo ogaadeen in naagtan diinta islaamka inay ka baxday inay haysato dhalasho Yahuudiya inay diinta Yahuudda qaadatay
muusaadkana ay isku dhiibtay wax badan ay qaribtay runtii ay arrinta la yaab ay ku noqotay asaga markaas kadib aan soo laabano amiina waxay ogaatay in xaaladeeda riski ay ku jirto waxay si toos ula hadashay qoladii muusaadka waxay tiri aniga baxrayaan ku jira waxaan ogaaday in cali arrinteeda uu ogaaday amiir axmed wuxuu sameeyey asaga ciidamo badan oo sirdoon ayuu sameeyey wuxuu yidhi gabadhan xogteeda waa inaad mar walba inaha ku heesan oo aad daba gashaan amiina waxay sameeyday dadkii muusaadka markii la hadashay muusaadka wuxuu ku amray in ayada gurigeeda ay ka soo baxdo yacni gaarigeeda inayna soo qaadan yacni taxi ayay soo qaadanaysaa kadib waxaa lagu amray in xaafadaha waddankaas inay ku soo wareegto ilaa inta ciidamada qaaska ay u imaanayaan kadibna israa'iil inay dib ugu celiyaan ayaa loo ballan qaaday ayadana markaas kadib waxay sameeyday howlgalkii ayay bilowday yacni magaalada ayay kusoo wareegaysay kadib gaariga meel ayuu istaagay albaabka ayay furtay laakiin yaa ka fura mataqanin amiir axmer raggiisa mid ka mid ah 15 bishii 10aad 1975 ayada falastiin ayaa la geeyey weliba waaxda dambaarista ayaa su'aalo badan weydiiyey fiilkeeda hoos sida ayaa la dhigay kule aniga hadda kama sheekan karo xaaladdeeda iyadu waa la socotaa inay ahayd naag khayaano badan dalkeedii khayaantay masaakiintii khayaantay dad badan la dilay darteeda xogtii waddanka inay gudbisay waxyaabahaasoo idil fiilka bilowgiisa ayaynu idinkaga soo hadalnay laakiin intaasoo idil waxaa qayb ka ah oo garab ku siinayay muwayn waa ninkii isgaarsiinta fadhiyey oo ku caabinaya xog walba oo waddankan ka baxaya oo israa'iil ay helisay in gabadhan amiina in ay gudbiso cimrul axmar wuxuu sameeyey gabadhii ayuu wuxuu ku wareejiyey qolo sirdoon ahaa runtii ayaga marbiina ku gorgortamaan sababtoo waa cadow waa naag xun oo najaaso ah oo runtii darteeda xasuuq ba'an israa'iil ay u geysatay dhul carab iyo dad carab oo masaakiin ahaa haddii la dhaho gabadhan waa la deynayaa xoogaha dadka kale niyadda ayay ka jabayaan waxaa la sameeyey xabsiga ayaa gudaha loo dhigay yacni waa la xiray musiibada waxay ka imaaday xabsiga hal nin ayaa waardiinaya halka nin ayaa isku jilcisay yani iska dareemi kartaa waxbaa la tutusiyey jaceela loo bandhigay ninkan wuu kala batay gabadhii way ka caqli badisay way wadatay way isla baxsadeen kadib shilmad yaree siisay waxay tiri aniga waa lay dulmiyey ugu dambeyn jaceelkooda ayaa xoogaystay markaas kadib labadooda waa la soo qabtay ninkii waa la dilay markii la dilay gabadha laakiin xabsiga ayaa la dhigay ilaa muddo 5 sano ayay xirneed ma ogtii 5taas sano oo ay xirneed waxaa gorgortan xoogan ka dhaxeeyey yuhuuddii israa'iiliyiinta ahaa iyo run ahaantii jabhaddii xoreynta naagtii xumeed oo yuhuuddi ahayd waxaa lagu beddeshay 2 nin oo runtii muhiim u ahaa jabhaddii xoreynta maxamed bahdi iyo sidoo kale william nasaas labadaas nin waxay sameynayeen dilal aad u qorsheysan markaas kadib waa la soo qabtay yacni israa'iil ayaa qabatay xabsiga ayaa la dhigay yacni kala wareegitaanka jasiirad oo qubris lahay ayay ka dhacday wasaarado badan ayaa joogay iyo dalal badan runtii aaniya ama amiina saa u taqaanid markaas kadib meel ay ka baxday ayaa la waayey runtii waa la baadigoobay hadda google-ka xitaa dad geliso sabradeeda midda saxdaa ma arkay sababtoo yuhuuddu sirdoonkooda si fudud in loo ogaado ayay diidayeen dad baa waxay dhahayeen yuhuudda ayay dhex joogtay yacni musaadka ayay la shaqaynaysay kuwa waxay dhaheen jordan ayay tagtay kadibna meesha ayay ku dhimatay laakiin yuhuudda middaa way beeniyeen kuwa kale waxay dhahayeen maraykanka ayay tagtay iyada laakiin wax rasmi ah oo iminka laga soo saray arrintaas ma jirto laakiin ugu dambeyn waxaan caddaynaynaa qof alaala qofkii oo jaajuus ah oo ilaahay xarigiis ka furtay oo gaaloobay in ugu dambeyn meel xun inuu ku dambeyn doono qisadana maanta amiina ayay ka hadlaysay daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa raadka sirdoonka barnaamijyo badan oo xiiso badan oo sirdoonka ayaa soo socda waxaan idinka codsanaynaa inaad videogan like garisaan subscribe noo saara muuqaalkan noo shargareeya wabillahi tawfiiq waxaan u balnaa barnaamijyo kale oo midaan ka duwan ilaahay waxaan ka baryaynaa waddankeena inuu ka dhigo waddan barwaaqaysan dunidan la tartami karta dhammaantiin waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgeliyo asalaamu calaykum